Bismillahirrahmanirrahiim. Kulan habboon daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya kulanka Trump iyo weliba madaxweynaha cusub ee Andres Asfora oo la qariyay. Trump oo bilaabay isbahaysi cusub. La soco sharta Trump waa ay sii fidaysaa. Sidee ayay dunidu ula socotaa tallaabooyinka qaawan ee Mr. Trump banaanka la soo istaagay? barnaamijka qubanaha ayaan ku qaadaal dhigi doonaa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi oo cadeeyay in aysan jirin wax kale oo qarsoodi ah oo kala dhexeeya Mareykanka, laakiin baal cusub u furay. La soco Iran waxa ay furtay wajahada dagaal cusub iyo weliba sidoo kale dowlatus military. Xagee ayay ku wajahan tahay? Maxay ahaayeen tallaabooyinka culus ee maalmihii ugu dambeeyay sida xoogan ay u wada Iran? Qubanaha wararka caalamka iyo Soomaaliya ayaan kugu qaadaal dhigi doonaa. Waxaa sidoo kale aad ku daawan doontaan dhul gariir cabirkiisu yahay 5.5 oo ku dhuftay dalka Cuba. Saameyn intee la eg ayuu geystay? Waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku daawan doontaan waa sidee xaalka Soomaaliya waqtigan? Maxay tahay caqabadaha culus ee waqtigan uu wajahayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud? Soomaaliya waa ay fashilantay sida ay sheegayaan khubarada dunida. Maxaa ka jira waqtigan in baarlamaanka weli uu furmi lahay kala fadhigiisa? Qubanaha wararka caalamka iyo Soomaaliya ayaan ku faaqidi doonaa. Markasta ugu horeysa waxaan ka dalbanayaa inaad noo like si aan saaxiibo badan u gaarno, kuna soo biirto channelkeena cusub ee qubanaha wararka caalamka iyo Soomaaliya. Waa 9 taariikhdu bisha 2 2026. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la kulmay madaxweynaha Honduras Nasri Asfo oo markaasi ku sugan Valdoria, iyadoo madaxweynaha Mareykanka uu ku amaanay waxa uu ku tilmaamay iskaashi sii kordhaya oo lagu xakameyn doono ganacsiga daroogada iyo weliba socdaalka sharci darrada ah. Trump waxa uu si adag waqtigan uu markaasi ula kulmay saaxiibkiisa Asfora oo ah ganacsade conservative ah oo weliba ku sugan hotelkiisa, iyadoo u muuqata waqtigan Trump in uu dhibaatooyin kale waaweyn uu halkaasi ka wajihi doono isaga oo qorsheynaya ama sida uu ku tilmaamay qormada dheer ee uu bartiisa X uu ku daabacay in ganacsiyo iyo weliba sidoo kale baal cusub uu u furmi karo Mareykanka. Qorshaha uu ka laalayo sida uu ka damacsan yahay, iyadoo u muuqata in Trump oo weliba isaga oo qormadiisa ku daray ayuuna yiri isagoo isticmaalaya naaneysta Asrufa. Trump wuxuu si xoog leh markaasi u taageeray Asrufa intii uu ololihiisa u socday, isagoo xitaa u hanjabay in uu joojin doono gargaarka ee Honduras haddii uu markaasi guul dareysto. Haddaba Trump maxay tahay xiisaha goonida oo u haya Asrufa, madaxweynaha dalkaasi oo waqtigan u muuqata in tallaabo cusub ay wada qaadi doonaan? Waa hagaage Iran waxa ay markaasi ku adkeysanaysaa in ay xaq ay u leedahay inay markaasi horumariso, welibana diyaarna u tahay in ay sameyso tallaabooyin lagu dhisayo kalsoonida sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran Abbas Araghchi, iyadoo markaasi diblomaasiyiinta Mareykanka iyo weliba Iran ay kulan toos ay ku lahaayeen ama ay ku yeesheen Oman Jimcihii. waxaana sidoo kale uu si adag diiradda u saaray wada hadallada ee xilligii markaasi ciidamada badda ee Mareykanku ay markaasi ku sugnaayeen agagaarka Iran, halka Tehran ay markaasi u hanjabtay in ay si adag ugu jawaabi doonto haddii markaasi la weeraro. Araghchi ayaana sidoo kale sheegay waan diidi doonaa inaanan loo ogolaan karin wax horumarin ah aruurinta nuclearka iyo weliba hubka dhibaatada weyn ka keeni kara dunida inteeda kale. laakiin Iran ayuu yiri tallaabada culus ee waqtigan ay qaadaysa ayaa noqonaya sidii ay markaasi dhabarka ugu toogan lahayd wax kasta oo duulaan ku ah. Qorshaha Iran ma yara ayuu yiri, waxaana sidoo kale uu tilmaamay waqtigan inaga colaad inagalama dhexeysa Mareykanka, laakiin heshiisyo ganacsi ayaan diiradda wada saari doonaa si aan u horumarino yoolalka dalkeena iyo weliba aragtida kaga aadan. hadalkiisa oo intaas uu ku soo koobay ayuuna ku cadeeyay qorshaha ugu cad ee waqtigan Iran ay qaadayso. Waagaga dhul gariir cabirkiisa lagu qiyaasay 5.5 ayaa ku dhuftay Cuba, iyadoo markaasi ay sheegtay xarunta Yurub ee daraasaadka dhul gariirka ayaana sidoo kale waxa ay aad ugu taariikhayday in dhul gariirkan dhirar ahaan markaasi ayna tahay kii ugu horeeyay ku sheegtay
in dhulgariirku uu ahaa 5.9 kadib in markaasi hoos loo dhigay 5.5. dhulgariirku wuxuuna markaasi ka dhacay tiri meel aan sidaasi ugu fogeyn qiyaastii una jirta 15 kiiloomitir 9.32 mayl sida ay markaasi sheegtay AMSC-da. wax cadna banaanka ma aysan keenin haddii ay khasaare uu geystay dhulgariirka halkaas uu ka dhacay. inkastoo aan weli si sax ah loo haynin qorshaha dhabta ah ayaana imaanaya waqtigan in marxaladaha dhulgariirka saameyn xooggan ku yeelanaya Kuuba, waana markii labaad ee halkaasi uu ka dhacay. waa hagaag waa nagintaas barnaamijka qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya. waxaan ka dalbanayaa mar kale haddii ay tahay markii ugu horreysay darto channelkeena fadlan nagu soo bir ka mid noqo saaxiibadena like-tana saaxiibo fara badan ayay ina tusaysaa. mahadsanidin.